Waa salaamo dhamaan walaalahay sida wada dhantihiin kulley waxaan u malaynaa madaxayga waa arkaysaan inuu laba qayb kala noqday. Wejigayga caadiga intaan ku soo aruuray qaybtan cad aa ujeediin madow ee noqotay soo madoobaatay. qaybtan sidoo kale madax markaasaan dhaho waa dareemaysaa, qof walbana wuu dareemayaa inay kala baran tahay. maalintiis 12 waaye, qof walba oo raba insha Allah inuu ka faa'iidaystana qaabka uu isticmaalay iyo sida looga faa'iiday iyo waxay tahay inta waa insha Allah YouTube-kayga nagala soco waan ila soo xiriiri kartaa. Muhiimadda waxay tahay wax markaa isticmaalaysa inaad serious u isticmaasho haddii aad rabtid inaad result ka heshid. maxaa yeelay wixii inaad isticmaashid adigana aad waxba ka faa'iidin, qarashna uu kaa galo, birina aad tiraahdo wax ma tiraysa been waa laga fiican yahay. marka muhiimaddaada waxay tahay dambaroolkan qofka isticmaalaya u baahan inuu si muhiim ah u isticmaalo. muhiimadda waxay tahay waa shanlo, sida shanlo kale ujeedaa ganaganahaas ay leedahay waa wada shanlo camal, waa cirbad ah oo yar, waa 0.5 waaye. marka iyadoo waxaa jirto 0.3 ah, iyadoo waxaa jirto ah 0.1 waa waaweynta xaage zaid waa waaweyn tahay. sidaas darteed marka 0.5 kaana isticmaalaa, 0.3 gan aad u yartahay. marka 0.1 ka qofkii rabana wuu isticmaali karaa, laakiin xoogaa way ka waaweyn tahay tan. marka muhiim markaa isticmaalaysid waa shan loo kale. waxaan waa saartid sooma, markaa saartid waa kaay normal saasa u saaray waan ku wadaa sooma. wixii markaa saas ugu xoqo waan dareemahayaa, laanno madax walba meesha uu tinta ay ka maqan tahay wuu ka xanuun badan yahay in yar meesha tinta ay ku badan tahay. meesha tinta ay ku yar tahay markaa marinaysa xoogaa xanuun aad dareemaysaa. xanuunkaas aad dareemaysa it means ina wixii ay shaqaynayaan oo meesha ay furmayso. ma fahanta? muhiimaddu waa intaas marka inaa wixii aad dareemaysid markaa isticmaalaysid. hadda markaasaas kaaga sikada waa dareemaysaa madaxa intaas dhan inay caddaatay maragtaa. marka muhiimaddu waa intaas. anaad markaa inta isticmaalaysaan saan markaa u mariyo haddana dada waa ka dhigaa, maxaa yeelay si toos ina meesha u dhex martaa rabaa. dadabkana wuxuu kaaga faa'iideynaa laanno saan markaan dhahayo wadday maraysaa, waddo badan oo saan ay hadda ay ku martay markay saan tahay waxaa laga yaabaa meelo qaar inay ka booddo, laakiin markay saan noqoto haddana meelihii marka hore ay ka boodday ay helaysaa. ma fahamta? muhiimadda waa intaas marka qofka inuu fahamsan yahay saas. intaasaa muhiim. marka dambaroolkan taas kaa saacidaya laanno ujeedaa aniga hadda meeshaana arkaysiin intaan ugu horeyso intaan ugu horeyso hadda way soo baxday ujeedaa saas markaana waa arkaysaa xoogaa way soo baxaysaa. marka hore eberay ahayd khafiif zaid ahayd, meeshaan intaan eberay ahayd zaid, laakiin dambaroogaa ugu roonaaday, saliidana waa ugu roonaaday. hadda xoogaa maasha Allah gadaal si fiican ay ugu soo buuxsantay. intana insha Allah waa imaanaysaa. laakiin muhiimadda waxay tahay wixii markaa isticmaalaysa inaadan ka cabsan adiga dambaroolkan aadan isdhihin ama dhaawac kuu geystaa, waxba ma kuu geysanayo. waxaasaa arkaysiin waa qolof madaxa oo ka kicinayo. intana sidoo kale marka hadda dhig calaamadaysantahay, dhig waa calaamadaysantahay wayna soo madoobaatay. madow mar hadduu yimaado qolofna meesha ay ka kacayso it means macnaheeda in tinta ay soo socoto. xoogaa xaad yariis oo meel dheerna waa dareemaa inay soo laabatay. marka insha Allah I hope 4 week markay dhamaato insha Allah inaa wax badan ka aragtiin insha Allah. mar walban resultiga waa idiina soo wadaaga haddii ilaa yiraahdo. ilaahay nafta baaqi nooga dhigo.
yes dambrolka saas oo noogu dhamaaday yes hadda muhiimadda waa iyada waa saliidda gadaalan ka bilaabaa inta badan mar walba saliidda ku buufisid oo dambrolka aa marisidna waa uu ku hurayaa wuuna balbalaya balbalay leedahay laanno meelihii dambrolka uu daboolka ka qaaday oo dhan waa xoogaa balbalaya oo saliiddiyaa gelayso waa macnaheeda adiguna waxaa lagaa rabaa inaa balbalkaas riiska aadan waxba u arkin kadibna aa fahantid in balbalka macnaheeda uu yahay in wixii wax iska bedeleen meesha taasaan ugu muhiimsan soo marka 3 4 2 minute 3 minute muhiimadda inta adiga awoodid waa hadda koley 12 cisho ugu horreysay way dhammaatay hadda wixii ka dambeeya insha allah qaabka u isticmaalo waxay tahay wixii oo dhan cashar ahaan oo soo bixin doona insha allah haddii ilaa yiraahdo soo marka igala soo youtube-ka adigoo mahadsan islaamanka waxay dhihi jireen doqoni cawa madow laakiin maskiin iyo inaan lacagtiisa isu qooyin bidaar leh saasay markaa sheekada maskiin iyo nimaan beesidiisa isku quurin bidaar leh aday ku taala marka cabdullaahi bidaar jaaniskan haysatid ka faa'iideyso maanta waxay dhamaatani hawshayda intaas yaroo ii dhimo waa baaranku masaajeyna kadibna waxaa waa isku dhamaatay soo marka balanteena waa new hair lotion Dambro